Bannaanbaxan oo ay dhigayeen dadka shacabka ah ee degan nawaaxiga barxadda Biyaas Libre ee degmada Xamar Jab iyo kuwo kale oo farsamayaqaano ah oo muddo ku shaqaysanaya halkaas ayaa waxay uga cabanayeen darbi la sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu ku wareejiyay barxadda. Dadka ayaa waxay wadooyinka soo gala iyo gudaha barxadda ku gubeen taayiro waxayna ku qaylinayeen erayo ka dhan ah maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda dhexe taas oo ay ku muujinayeen cabashadooda. ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa booliska degmada Xamar Jab oo halkaas soo gaaray ayaa bannaanbaxayaasha ku kala eryay rasaas iyagoo qaar ka mid ah dibadbaxayaasha xiray. qaar ka mid ah bannaanbaxayaasha oo nala hadlaya waxay sheegeen in maamulka gobolka Banaadir uu darbi ku wareejiyay goobtii ay ku shaqaysanayeen iyo wadooyinkii ay u marayeen guryahooda. intaas 700 oo qof baa meeshaas ka shaqaysata oo guriga wakiilsan yihiin garoonka waxa iska leh wasaaradda bataqaana sportska inuu ku ogeey markii garoonka la dhisayay oo la shamitada laga dhigay anagu guriyaha garoonka haday rabaan dhulka la gooyeen laakiin waxa weeye anagu guriyahaas wareegayeen lama xiraayo waxaana weeye hadii la xirana dawaa dhibanayna dawladana tuug meesha waxba ka qaadi maayo 100 jeer la hunguriyay oo la dhistay laga dumiyay kuwi laga dumiyay ninka xaliya badan ma jiro ma garatay gudoomiyaha sharaf buu leeyahay haduu ka dambeeyay ka noqdo ma garatay haddii kalena waxa weeye wuxuu sameeynaya sabay intaas oo agoon iyo shaqaalaha oo ka shaqeysa oo masaakiina ninka soo gureeyay xamar oo dhan meel ka waay xamar oo dhan meel ka waay daar salaam mutaw meel kasta mutaw dhulkii oo dhan ninka indhaas ka soo ridaya oo masaakiinta xoogaya dadkaan hamba hadday baan intaas waa agoon wala hamba gudoomiya waxaan ku codsanaynaa arintan haduu wax ku og yahay ha ka laabto haduusan wax ku ogeynna dadkan hanaga qabto cid meeshaan dhisanayso anaga ma naqaano laakiin ilaa hadeertaan heebtooda ma naqaano anagana cuna qabateen iyo arqaladeena nal ku sameeyay intaasaan macnaa cabasho ka qabnaa waxaan ka cabasho kana Biyaas Libre oo aad loo yaqaano ma fahanteen leemal tuuga maalan waa dhistaan waxaan diidana anaga meesha dhismada la dhisayaan diidanahay meesha masaakiina ku nool 200 300 700 qofood masaakiina ku nool ma fahanteen horey dowladda Soomaaliya ayaa u dumisay darbi ay ku wareejisay barxadda Biyaas Libre ee degmada Xamar Jab shirkadda nadaafadda ee Eco iyadoo sheegtay in aan la gadan karin lana kireysan karin dhul dan guud ah sidaas darteedna loo dumiyay darbigii dhisnaa.